dhammaanteen waxaynu wada ogsoonahay oo aynu wada garanaynaa inay xafladaha ama munaasabadka aroosyadu ay yihiin kuwo quruxda ama farxadda badan nolosha aadanaha taasoo ay kulmaan qoysas caruur iyo dad aad u tiro badan habeenkaas waxaana habeenkaas xafladda aroos ahaata mid xasuus aad u ballaaran ku dhex reebta dad yowgaas kasoo qayb galay habeenkaas haddaba bal ka waran haddii uu soo dhex galo jin xafladahaas u saaxiibka farxadda iyo reeraynta kana dhigo amaba u bedelo xasuus aad u cabsi badan oo argagax leh muuqaalkeenan maanta waxaynu kaga hadli doonaa qisada amaba dhacdadii gabadhii ka dhexaystay arooska jinka magacaygu cabdimajiid aynu gudagalno muuqaalkeena maanta sanadku markuu ahaa 1997 waxa dhulalka khaliijka carabta gaar ahaan dalka Kuwait waxa inta badan lagu qaban jiray xafladaha aroosyada guryaha maadaama ay dadku iskaga dhawaayeen sida maanta yacni waxa dhifay naadir ahaa in aroosyada lagu dhigto amaba lagu qabto hoteelada iyo meelaha aadka u waaweyn wixii la mid ah intaas kadib waxaan wada ogsoonahay in xafladaha arooska si xamaasad lagu yeelo in loo yeero islaamo amaba sida aroosyada jiilkeena dambe DJ arooska xamaasad u yeela almuhim xilligaas aynu ku hadlayno 1979 ma aysan jirin dhulalka carabta DJ markaas waxa loo yeeran jiray gabadha qisadeena maanta ay ku saabsan tahay taas oo lagu magacaabi jiray Nuura Dagaaga ama Nuura Daqaaqa ereygan dagaagana waxa noqonaysa ama dhulalka khaliijka carabta macnaheedu wuxuu noqonayaa dadka aroosyada shida ama ka heesa sida aynu naqaano gabadhan ayaa ahayd mid waagaas ama xilligaas sagaashamaadkii ka dhaxaan ahayd dawladaha khaliijka carabta gaar ahaan dalkaas Kuwait oo loogu yeeri jiray xafladaha aroosyada si ay u shido oo ay uga heesto inta lagu guda jiro xafladan arooska almuhim waxa maalmaha ka mid ahayd soo wacay gabadhan amaba garaacay telefonkeedii Nuura gabadh amaba haweeney taasoo ka dalbatay inay Nuura iyo kooxdeeda yimaadaan xaflad aroos oo ay inanteedu lahayd si ay uga heesto ay xamaasad ugu yeesho waa ay aqbashay Nuura dalabka ay soo bandhigtay haweeneyda waxay ka qoratay oo ku heshiiyeen waqtiga leemanaya lacagta iyo meesha uu ka dhacay aroosku waxay iskuraan ba waqtigu waxa la gaaray xilligii ballanku ahaa ee xafladda aroosku dhacaysay waxayna Nuura iyo kooxdeeda ka koobnaa 6 dumar ah oo kale ay u jihaysteen goobta xafladdu ka dhacaysay markay soo gaareen goobta arooska Nuura iyo kooxdeedii waxay ku sheegtay in xafladan aroos ay ahayd mid ballaaran oo loo qaban qaabiyay ama loo qurxiyay si aanay naba caadi ahayn si kastaba arrinku ahaadee Nuura iyo kooxdeedii waxay hore u galeen gurigii gaar ahaan qolkii lagu talagalay inay isku diyaariyaan inta ay soo dhameystirmayeen dadku ama ay soo badanayeen dadka xafladdu markay gaadheen saacadu 10 iyo barkii habeenimo waxa ay bilaabeen Nuura iyo kooxdeedii in ay shidaan arooskii oo ay ka heesaan waxa uu socdaba waqtigu Nuura iyo kooxdeedii marba ay hees ku tuurayaan waxa uu markii habeenkii bartagay ama ay saacadu ahayd 12 habeenimo waxay Nuura u dhaqaaqday meel ay biyo yaaleen xilligaas oo ay islahayd ka soo waana u dhaqaaqday meesha ay biyo ka xigeen intaas kadib waxay ka daba timi Nuura mid ka mid ah kooxdeedii oo lagu magacaabi jiray Shams ama badeen aqsoo algareena magacana Shams waxaana Nuura ku tiri meel dareentay Nuura inay wax ka khaldan yihiin arooskan waxaana ugu jawaabtay Nuura oo maxaad aragtay waxay ugu jawaabtay Shams Nuura waxa ka khaldanaya in markasta ay noo soo dhawaadaan arooska jooga in aan dareemayay kul saa'id ah oo ka soo baxay jirkeeda wajigooduna uu sameeyay yahay sida dhagaxa markaad aragto ama uu adag yahay markay inta u sheegtay Nuura way cabsatay waana ay dareentay in wax ka khaldan yihiin arooska laakiin si way dejisay Shams waxaana ay u sheegtay in Allah khalqigiisu sidoo doono uu abuuro walwalka iyo cabsida ay iska dhaafto waxaana ay sidaas oo dhan Nuura ay u dejinaysaa gabadhan ka mid ah kooxdeeda si aan inta kale kooxda u dareensin inay wax jiraan oo ay u cabsan inta kale kooxdu waxay Nuura iyo kooxdeediba sii wataan heesii arooska sii shidaanba waxaan markan waqtigu u dhaafay kala barkii habeenka waxaan uu ku sii siqayaa gabagabadii habeenka waxaana xafladda aroosku ahayd marba marka ka sii dambaysa ay soo buuxsamay ay soo camirmayaan dadkii ku guda jira xafladan waxaana ay ahaayeen dadkii ku guda jira arooska dhexdiisa oo u ciyaaraya aad iyo aad si aan ciyaartoodaas ahayn ciyaar ama xamaasad caadi ah ay ahayd mid la yaab leh oo cabsi ku dheehan tahay waxaana si kadis ah u arkeen Nuura iyo kooxdeedii inta ay ku guda jireen heesaha iyo shidida arooskan waxaysan hore u arag kuna fakirin inay arki doonaan waxaas ayaa inay dadka
ku guda jira arooska gudihiisa inay inta sare bini'aadam ka ahaayeen balse ay lugahooda wada ahaayeen lugu xayawaan sida luga dameer amaba kuwa adhi iyo wixii la mid ah. run ahaantiina markii ay wada arkeen Nuura iyo kooxdeedii muuqaalkana noocan way wada naxeen waxayna midba midka kale sheegayay indhaha waxa uu arkay heer gaadhin in iyagoo heesaya uu codkoodu gariir galo cabsi daraadeed waxaana ay Nuura markiiba dareentay oo ay ogsoonaatay in ay yihiin arooskani aroos jin oo ay san dad amaba insi ahayn. ogsoonoona daawada markasta in aanu jinku marka uu isu soo ekaysiyo bini'aadam aanu isu soo ekaysin karin bini'aadam ama qof dhammaystiran yacni inuu xagga sare ka noqon karo wax gaar ah amaba wax gooni ah sida xayawaan oo xagga hoose ka noqon karo bini'aadam amaba uu xagga sare ka noqdo bini'aadam oo sidaa imika aynu sheegayno lugihiisa amaba qaarkiisa dambe ay noqdaan wax kale amaba xayawaano. waxaanay Nuura ku wargelisay kooxdeedii inaanay muujin wax cabsi ah oo aanay baqanin si aanay u dareemin jinkan ku guda jira xafladda aroosku. arrinkaas ay ku dhaqaaqdeen Nuura wuxuu ahaa tasarruf amaba arrin wanaagsan taasoo ay uga jeeday si aanay u dhibaateyn oo iyagoo bad qaba uga baxaan xafladan arooska ee jinku leeyahay. waxaana ay ku dhaqaaqeen kooxdii sida ay fartay ama way sheegtay Nuura waana ay sii wadeen qaadidii heesaha waan isdareensinay inay cabsanayaan amaba ay baqanayaan ilaa mid ka mid ah kooxdii ay mirdaboolantay oo ay suuxday markii ay usii adkaysan kari weyday muuqaalkan aadka u cabsida badan ee ah wax inta sare ka qofa lugihiisana xayawaan yihiin. walle aniga haddaan ahaan lahaa amaba ku jiri lahaa laymaba arkan dabaysha iyo anigu malaha aniga ayaa ka hor badnaan lahaa kaftan yar. markii ay mirdaboolantay gabadhii ka midka ahayd kooxdii Nuura waxaa isbedelay jawigii xafladda waxaana kusoo carartay mid ka mid ahayd wixii dadka u ekaa ee jinka ka mid ahaa waxaana ku tidhi Nuura maxaa helay inanta caawimo ma u baahan tihiin. waxay ugu jawaabtay Nuura may waa caafimaad qabtaa waxbana ha welwelina. waxaanay dib u bilaabeen qaadidii heesaha iyo arooska shididda halka ay Nuura iyo gabadhii ka midka ahayd kooxda mirdaboolantay ay geysay qolkii lagu talagalay in yar kadib ay miirkii usoo noqday amaba soo kacday gabadhii waxaana ay Nuura u sheegtay inaysan u adkaysan karin mandarka amaba muuqaalkan cabsida badan. waxay dejisaba Nuura gabadhii waxay dib ugu soo laabteen kooxdii oo ay sii wateen shididda arooska jinka. almuhim waxay iskuraanba waqtigu qabow saa'id ahna uu dhacayo amaba uu soo badanayo qabowgii waxaa la eedaamay eedaankii salaada subax waxaana hal mar damay leydhkii amaba korontadii guriga waxaana gurigii qaylada iyo dadka ay buuxdhaafiyeen isu bedelay mar qura meel aan sanqadh lahayn oo bilaad shabaq ah. waa la yaab siday talo mar qura u wada aamuseen gurigii buuxdhaafiyeen dadku markay korontadu tagtay. waxaana ay bilaabeen kooxdii Nuura markii uu gurigu mugdi isu bedelay qaylo cabsi ay ka keentay amaba ay baqdin ka keentay balse waxay isla markiiba ay Nuura ku wargelisay inay joojiyaan qaylada oo ay si degdeg ah uga baxaan guriga. run ahaantiina waxay ahayd jaaniska keliya ay haystaan si ay uga baxaan gurigan jinka uu leeyahay ama gurigan cabsida badan. waana ay ka baxeen gurigii markii ay dibadii guriga uga baxaanna waxa kasoo horbaxay oday amaba nin da'weyn oo taagna gurigii ay kasoo baxeen agtiisa isla markiibana dhamba dhanka kale ayaa uu ka cabsaday oo uu ka baqay yacni odaygiina waxa uu ka baqay Nuura iyo kooxdeedina waxay ka baqeen odaygan oo waxay moodeen malaa inuu kana yahay jin. waxaana odaygii weydiiyey maxaa idin keenay halkan oo aad ka qabanayseen amaba aad u timaadeen. waxay ku jawaabtay Nuura ay ku tiri waxaana la ka dalbaday xaflad aroos oo ka dhacaysay gurigaas si ay ushidno aan uga heesno. odaygii waxa ugu jawaabay gurige. Nuura ayaa waxay u tilmaantay gurigii laga dalbaday laakiinse waxay aragtay cabsi afkala qaad iyo naxdin ku abuuray. waxaana ay aragtay gurigii ay hortiisa taagnaayeen baabuurta aadka u ballaadhan iyo arooskii aadka u quruxda badnaa gurigii uu ka dhacayay oo isu bedelay guri uu dushiisa sare ka saaran yahay habaasya boodh taasoo muujinaysa inaan sanado badan la degin oo laga haajiray. waxaana uu odaygii la wadaagay in aan muddo 10 sano ah amaba 10 sano ka hor dad ugu dambeysay gurigan oo laga haajiray waana uu ka tegay odayga oo uu ka dhaqaaqay. Nuura iyo kooxdeedana waxay ogsoonaadeen inay ka heeseen aroos jin uu leeyahay sidaas daraadeedna waxay Nuura halkaas ku joojisay heesidii aroosyada dambe. dhacdadaas kadibna dib uma ay heesin sidaasna waxay ku noqotay qisadani amaba dhacdadani mid ka dhaxaana dalkaas Kuwait. ugu dambeyntiina waxaan kusoo gabagabaynayaa muuqaalkeenan maanta wixii khalad ah iga dhacay muuqaalkan dhexdiisa waxay ka ahaadeen naftayda iyo shaydaan. waxaan idinku dhaafayaa intaynu ku kulmayno muuqaalkan muuqaalka xiga sidaas iyo nabadgelyo.